الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد waxaan ku jirnaa silsiladii haweenkii culimada ahaa islaamka waxaan ku jirnay magaca Faatima waxaan niri insha Allah taala hadba waxaan soo qaadan doonaa qarniyo kala duwan casriyo kala duwan ujeedaduna waxa weeye inaynu baranno oo ogaano ama wax ka ogaano in cilmiga uu dhaxal u wada yahay rag iyo dumar islaamka marka aragtidiisa loo eego muslimiintuna taariikhdooda dheer ay rag iyo dumar ba cilmiga dad ku xeel dheer ay ka soo baxeen maanta waxa weeye sheekhada ama caalimada aan ka sheekeynayno waxa la yiraahdaa Faatima bint Ayyash al-Baghdadiyya hadii la yiraahdo macnaha waxa weeye magaalada Baghdad ee dalka Iraq ayaa loo nisbaynayaa ama loogu abtirinayaa qofka waxa jira ama qabiil ama magaalo ama meeshu ku dhashay in loogu abtiriyo ama meeshu ku noolaa ama shaqada uu hayn jiray haduu yahay caafimaadka ama suuq ama wax tijaarada ama ganacsiga iyo wax la mid Faatima bint Ayyash bin Abi al-Fath al-Baghdadiyya ayaa la yiraahdaa runtii sheekadeedu waa sheeko xiiso leh rugga si gaar ah waayo waxaan la yaabay marka kutub taariikhda sida kitaabka al-Imam al-Dhahabi rahimahullah ta'ala sir a'lam an-nubala dadkii wanaagsana oo tarjumay inta sifo oo xaajiyadaas ama sheekhadaas lagu sifeeyay waa yartahay dumar lagu sifeeyay bal hadda dhageyso waxa lagu sifeeyay kutubta wax ka qortay al-waa'ida tii wacdin jirtay az-zaahida adduunyada iska urursanayd al-aabida عبادة بدنيد الشيخة الفقيهة شيخة داهيد فقيهة داهيد العالمة عالمة داهيد هذا العلماء هو وين ويدت كقرية هذا الكلام المسندة أو ما ركتي سند كذا وطحنا علمي ماشي كقاعدتي ماها إسكبوسي الخائفة الخاشعة الخائفة يعني وحوي قفتي عبسدة الله سبحانه وتعالى بدنيد الخاشعة خشوع بدنيد السيدة القانتة والوصفية قانتة قنوتك وقفك طاعة بدن المرابطة يعني رباطك وحوي قفك أمكو جهادك كقيب قالوا أما ميلها ماركتي عدو قال قبقايو ومرابطك يهينا ولا يرى هذا عبادة إنه ماركتو أقو أنا ولا قمك عابا كلك قاركو المتواضعة الدينة العفيفة المتواضعة قف يعني isku hoos dhigid badan oo aan kibir badnayn cafiifada dhowrsoon الخير خير بدن oo maaragtay sadaqadeeda iyo khayrkeeda iyo wanaageeda iyo aad u fara badan yahay as-saaliha qof saalixada ah al-mutqina al-muhaqqiqa labadan magac waxa lagu magacaabaa culimada dad gaar ah oo ah dadka yaani cilmiga ay sheegayaan cilmi uu yahay aad loo lafaguray oo xeel dheer ayaa lagu magacaabaa muhaqqiq baa la yiraahdaa sheekhaas ama sheekhadaas waa muhaqqiqad yaani waxa ay sheegaysaa waa wax aad loo soo tifatiray oo la hufay la kala hufay way cilmigaasu al-mutqina waxa weeye qof cilmigaas ay taqaano si fiican u sugtay waay maaha qofkaas inuu cilmiga yaani iska boosi iyo waxyaalo meel laga qaatay kelimad halkan maaha waa mutqin yaani si fiican oo cilmigaas ويقانا الفاضلة المتفننة الفاضلة المتفننة يعني فنون بدن أي جرانيسا وحلايا تفسيرك حديثك لغة شعرك قبيك أصوش حسابك ساينسك حيالك للدون فلسفة إنه قفكي وكوي هي متفنن قفك عصاريرا أما متفننة بالغو مقعابي الواحدة في عصرها الفريدة في دهرها بيقدرين يعني ومدة يعني عصر جدي كلي جدو كلاته هيد وقف إيضا لمدي آنو جرين في كل الناحية اللي نحول بها أنت هذا نقص صباحنا مثلا سفوين كتاريخ دلقوس في شيخ الداس وحاليا هي تسأل عن دقائق العلم علمي يعني وحيالها أي علماء لا نقاش جرتي وهو دقائق العلم علمي سيدا حاش دار وحيالها مارت الدقيقة هي آتك أباهن دتك علماء ووين أي مارتي باران إيوه فقهي أو إتقانا كاملا أي سفي عن إتقانسي أو مارتي وحال دار أي وحال داراتي
علمي waxay ka qaadatay baa la yiri المقادسة waxa weeye culimadii بيت المقدس ku nisba sheeganayay xaggaas aha kadibna usoo jirooday dimashq magaalada caasimadda dimashq halkaas ay xaafad ay deganaayeen ayaa jirtay oo المقادسة la yiraahdo marka way badnaayeen Diyaa al-Maqdisi ibn Qudama al-Maqdisi aad bay u fara badnaayeen culimo badan baa ka soo baxday maqaadisadaas ama xaafadaas ama qoyskaas marka qoladaas bay cilmi badan ka qaadatay culimo macruuf ah oo waxa weeye de maaragtay aad loo yaqaano kutubtooda iyo cilmigooda oo aad ugu badan yahay cilmiga sharciga ah islaamka culimadaas bay ka qaadatay al-maqadisa marka la iyagoo dhan baa la isku qaaday qoomkaas bay cilmi badan ka qaadatay waxa kamid ahaa culimadaas Shamsuddin ibn Abi Amr waxa kamid ahaa culimo kale oo ragaas kamid ah ilaa ay si fiican ugu xeel dheeraatay cilmigaas sida la sheegay hadii ay wax yaani ka murugaan ama ay garan weydo waxay weydiin jirtay ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala oo isku casri ahaayeen isku waqti ahaayeen markaasuu la yaabi jiray baa fiqigeeda iyo aqoonteeda sidii u xeel dheer tahay iyo fahamkeeda iyo garashadeeda wuuna ammaani jiray ammaan badan buu soo jeedin jiray waxa kale oo lagu sheegay xagga cibaadadeeda inay ahayd qof aad u cibaado badan sawaama qawaama yaani soom badan oo habeen soo jeed badan oo cibaadadeeda yaani salaatul leelkeeda badan yahay qawaala bil xaq aan ka gaban oo si sax u sheegta macruufka dadka farta munkarkana ka reebta taasna waa mid rag iyo dumarka muuminiinta laga wada rabo والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ما موجود وأسميين معروف كأنه دتك فران وناقة إنه فران ومضى إنه فران دتك إنه وعديان وحي هيد سدا سوكلا تقانع باليسير والدنيا تسكور بالسالير وحير كو قناع حسن خلق بدن أي كفى إذ استبير الإمام ابن الذهبي رحمه الله تعالى انتفع بها خلق كثير خلقي أفرا بدن أي وعد جيدا إيو وحبردة إي علم جيدا أقونتها كفى إيديستي خاصة بير النساء دمشق جارهان دمر كرير دمشق ما هو إن كرير دمشق أدبي وفى إيديستين ثم تحولت إلى القاهرة كدبنا قاهرة أي أوريكت مرر بنسان شيء عالم الإسلامي وصيد أصل كا وحكي الحيران ما هي يسفرن أو في سكن يباسبور هذه كذا هذه دون ما جينا قفكو وحكسوا بحياة راشيا أما سيبيريا هذا ماشى لا يراهضو إنه إلى إيو وحتجيا مراكو wax weydiinay meeshu doonu u shadhiganaya oo degaya oo maarad ku noolay asaasi caalamka islaamiga isugu dhex jireen waa sida hadda dawladahan maarad inagina waa leeynoo diiday waa layna kala xirxiray caalamka islaami Yurub iyo Mareykan iyo iyaguna way soo furan yihiin ka soco marka qaahire u wareegtay qaahira markii ay tagtay sidaas oo kaleeto ayaa khalqi badan uga faa'iideystay cilmigeedii ilaa 80 bay gaartay ama wayba dhaaftay sida ay leeyihiin culimadu markii ay ahayd 714 hijriyadu ayaa habeenkii Carafa ay ku geeriyootay baaliyay Masar Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha u naxariisto iyadoo cilmi badan iyo xadiis badan iyo wacdi badan iyo wax sheeg badan ummadda uga tagtay dad badan inay ku intifaaceen culimo badan inay wax ka barteen rag iyo dumar bale ummadana wax badan wacyigeeda ku soo kordhisay إن شاء الله تعالى أنت كل ضمن يقف كلام كلا كل مدونه وهوينك علماء أها سداسي النبي تقولي يعني كتير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.